Waxaa jirta walaashay Zoe, aniga ayay ila dhalatay. Markay dhalinaysa aniga waxaan jiray 5 sano. Maadaama aniga kaliya aan cidda wiilka ahaa, waan ku faraxsanaa inay gabar ila dhalato. Laakiinse waana ka masiirsanaa maadaama ay ayada hooyaaba ayada wada jeclaayeen oo ayada wax kastana loo keen jiray maadaama ay iga yar tahay. Laakiinse markii dambeeta ayaan waxaan ogaaday walaashay inay mucjiso wadato. Maalin aniga ayadoo sala wada fadhino oo telefishin daawanayna ayay waxay tiri aabo ma soo laabanayo. Aniguna hadalka waan la yaabay. Waa ana fiiriyay waxaan ku dhahay maxaad tiri ku soo celi. Waxayna igu tiri aabo ma soo laabanayo. Anigu hadalka waa la yaabay. Su'aalo badan ayaana weydiiyay. Laakiinse iimayna jawaabin maadaama ay aad u yareed. Nus saac kadib waxaa soo dhacay telefoon. Waxaana la ii sheegay in hooyo iyo aabo shil gaari ay galeen. Uu aabo waqtigiisa dhamaaday, hooyana ee isbitaal ku jirto. Waa aan la yaabay. Walaashay si ay igu sheegtay ayay ahayd inuu aabo soo laabanayn. Anigu waan murugaysanaa. Ayaduna maadaama ay xilligaa yareed waxba uma sheegin. Waa ana aamusnaa muddo. Kadib waxaa la gaaray maalin maalmaha ka mid ah adigu 1 sano kadib. Aniga walaashay waynu israacnay. Waxaan tagnay meelaha ciyaalka lagu ciyaarsiiyo. Ayada way ciyaaraysay. Waxayna ku ciyaaraysay kubad. Aniguna waan ag taagnaa oo waan ilaalinayay. Markii aan arkay walaashay inay ciyaarta joogisay ayaan waxaan dhahay abaayo maxaa kugu dhacay. Ayadana meel ay gacanta igu taagtay wuxuuna ahaa nin jaakad weyn xiran oo hoos fiirinaya oo u eg inuuna cidna meesha joogin. Anigu waa la yaabanaa. Waxayna igu tiri ninka waa nin xun ee naga ag cararsii. Meeshaan hadaa sii joogno dhib ayaa dhici kara. Aniga ayada iyo maamo ciyaalkeeda wadate ayaa meesha joognay oo kaliya iyo ninkaas. Kadib walaashay waxaan soo xasuustay markii hadalladii aabbe igu dhahaysay. Hadalladaas ayaa niyadeeda weli ku jira waana soo cararnay. Maalintii dambe anagoo quraacanayna hooyo joornaalka ay akhrisanaysay gadaashiisa ayaan waxaan ku arkay askariya haya ninkii shalay aan aragnay. Waxaana ku qornaa waliba ninkan wuxuu dilay maama iyo labadeeda cunug. Waa maamadii meeshaan sala taagnayn oo sala joognay. Talow maxaa dhici lahaa walaashay haddii ii sheegi lahayd ninkaas. Kadib aniga waxaasna waxba kama soo qaadin. Waxaan islahaa waa ciyaal. Ninkuna waa ay ka shakisneed maadaama uu cidna la soconin. Ayada ayaan fiiriyay. Laakiinse qof oo yaaban ayay u ekeed. Kadib waxaa laga soo wareegay cabbaar. Waxaana israacnay ani iyo hooyo iyo ayada casho ayaan isku raacnay. Markaasna way joojisay cuntadii ay cunaysay. Waxayna tiri awoowe wuu dhintay. Aniga hooyo waa la yaabaneen. Waxaana dhahnay waan la yaabaneen. Hooyo waxay lahayd waa cunug yar. Laakiinse saacado kadib hooyo ayaa la soo wacay. Waxaana loo sheegay in aabaheed dhintay. Kadib hooyana waxay xaqiijisatay inay cunugtaan mucjiso leedahay. Maalintaa ka bacdi aniga hadalkeeda si fiican ayaan u dhageysan jiray. Laakiinse waxaa laga soo wareegay cabbaar mar aan guursaday kadib. Aniguna waxaasi dhan waa iska iloobay. Maalin ani iyo xaaskayga oo gurigeena joogna oo telefishin daawanayna ayay soo wacday walaashay Zoe. Waxayna igu tiri dhageyso aboowe. Waxaan kuu sheegayaa wax baan kuu sheegayaa inaad meeshaad ka tagto ayaan kuu sheegayaa. Meeshaas hadaa ka tagi weydaan adiga xaaskaagana wax baa dhici kara.
aniga su'aalo ayaan weydiiyey, maxaa dhacay? Maxaa saas ila dahay ayaan dhahay, laakiinse ayadu waxay igu tiri, haddaad hadalkayga maqlaysid meesha ka tag. Waxaana dhahay okay, waa caadi. Waxaan u sheegay xaaskayga inay walaashay saas dhahday, laakiinse waa xaaskay haddii su'aalo badan bay i weydiisay, mana haynin jawaabo aan ugu jawaabo, maadaama ay walaashay yarayd. Waxayna igu dhihi lahayd, walaashaa way yartahay maxaad u aamini? Laakiinse aniga waa aan la yaabanaa xaaskayse u walwalsanayd oo la yaabaneyd. Kadib xaaskay waxay la laabatay dharkeedii, waana soo cararnay. Subax dambe waxaa noola soo wacay cidii deriskeened ayaana soo wacday, waxayna noo sheegtay inuu qof gurigeena soo jabsaday, uu weliba mindi watay, markaasina uu waxba qaadan. Qofkaasina wuxuu ahaa xaaskay walaalkeedii oo walnaa. Walaalkeeda ayada balwad buu lahaa, maskaxdiisana mayna fadhin. Kadib aniga ayada haddaan joogi lahayn meesha maxaa dhici lahaa talow. Kadib walaashay maalinkaa kadib ilaa iyo hadda waa aan aaminsanahay, waxay sheegtana si fiican ayaan u dhageystaa. Laakiin xaaskii hadalkeed muxuu noqday oo kaliya, walaashaa sidee ku ogaatay? Hadda walaashay 15 sano ayay jirtaa, aad ayaan u jeclahay. Waana